dhinaca kalena gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta kulan ay soo qaban qaabisay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee Somaliland u furay ciidamada booliska asluubta ilaalada wadooyinka iyo cuqaasha gobolka Togdheer kaas oo lagaga hadlayay xeerka nidaamka garsoorka isla markaana lagu aruurinayay dacwadihii sanadkii hore ee xasaasiga ahaa kulankani oo lagu qabtay hotel cigaal ee magaalada Burco ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Yusuf Ismaaciil Cali uu ka jeediyay khudbad dheer oo ka hadlaysay nidaamka garsoorka laga hadlayo mas'uuliyadda xafiiska xeer ilaalinta dabcan xiriir baa jira xafiiska xeer ilaalintu leeyahay bahda kale cadaaladda iyo madax dhaqameedka sidoo kalena mujtamaca Somaliland xiriir buu leeyahay waayo وحفيزك قابلسن تنبي كستا oo dhaca sidoo kalena waxa isna ka hadlay munaasabadani kusimaha xeeryaalaha guud ee qaranka Aadan Axmed Muuse waxaana uu soo bandhigay anshadaha kulankani oo ka koobnaa 5 qodob fadhino inaan kaga warbixino wax qabadkii xafiiska xeeryaalaha guud ee qaranka ee sanadkii tagay 2012 iyo gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa oo xafiiska xeeraalinta ee gobolka oo isagana hore looga furay xafiiskii qaabilsana caruurta iyo dumarka hawlgalkiisii guud ahaanba kulankan oo ay hagaysay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee Somaliland ayaa waxa uu qaatay muddo hal maalin ah Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi